maamulka maanta gudoomiyaha jaaliyadda marti sharafta runtii aad iyo aad ayaan idin salaamay Ibrahim Xasan iyo Salmaan ayagana sidoo kale markasta uu soo dhaweeyay meel kasta mar alla markaan transit ku ahay taa magaalada runtii uu soo dhaweeyay ayagana runtii aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan runtii aad ugu faraxsanahay maanta in anagoo wax qurbaha ku dhow joogaan Soomaaliya waa iska qurbo laakiin haddana joogna guri Soomaaliyeed makhaayad Soomaaliyeed oo haddana matali karta runtii inay tahay meel Soomaaliyeed waxaad tegaysaa wadamo badan oo wadamada aad u horumaray haddana makhaayadahooda ma matali karaan magaca Soomaaliya laakiin hadda runtii maanta sida la sheegay runtii maanka way deeqday waan faraxsanahay Ibrahim waa nin dhalinyaro ah oo kulli idinka waa taqaaniin si fiican anigana waan soo shaqeynay wax badan waan soo dhaxmareen waa dadka ku dayashada mudan hadda intii yareen wada hadlaynay ambitionkiisu ii sheegay oo meeshan iyo wax ka weyn inuu sameeyo aniga 2015 baan halkan shaqo u imid muddo waxaan marti u ahaa anoo qolo kale u shaqeeyay waxaan marti u ahaa dawladda Turkiga aniga iyo niman kale oo Carab ah waxaan weynay iyagana waxay rabeen makhaayad Carbeed inay aadaan anigana makhaayad Soomaaliyeed marka makhaayad Soomaaliyeed kuma yaalin hadday ku taalana ma filaynin inay noqon karto meel dad la keeni karo laakiin maanta waxaan ku faraxsanahay waqti kastoo Soomaaliyeed u yimaadeen halkan imaan karo oo represent kareen aad baan ugu faraxsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay community-ga jaaliyadda Turkiga Sheekh Maxamed Ibn Qayyim oo in ayagana ay ka mid yihiin jaaliyadaha runtii Soomaalida ah isku xiran kulleeyay markii jaaliyadda yiraahdo khilaafaad iska jiraan laakiin inta aan arkay jaaliyad aad isugu xiran oo dadaalayso oo wanaagsan wadanka waa lagu cusub yahay laakiin sida arkay aad u dadaalayso runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaan filayaa over time jaaliyad way mature bay noqon waa gaari doontaa haddii Ilaahay ka raali noqdo fiicnaanaysa wadankan wuxuu noqonayaa wadanka labaad Soomaaliya marka laga soo baxo meelaha ugu habboon ee la dego hadda sida aan arkay saa la socodtiin Turkida naftooda ganacsi badan bay Soomaaliya ku leeyihiin oo hadda waxay ka fureen hotelka airport ay ka fureen waa maqashin kulay Dikale hotel yiraahdo oo isagana 5 star ah ay ka fureen annagana waxaan rajeynaynaa ganacsatada inay kuwaas oo kale halkan ka furi doonaan Ilaahay ka raali noqdo mar labaad mar saddexaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa inta soo qaban qaabisay ka soo qayb gashay community-ga sida arkaysiin wadankiini Soomaaliya maalinta ka sii dambeysay ka sii fiicnaanaya shalay dadkii xildhibaanada ahaa ee noo soo galay dad la soo qoray ay ahaayeen ama company kooda soo qorta ama hal qof soo qoray dad la keenay ay ahaayeen maanta xalay wixii ka dambeeyay doctor qof kasta imaan karo qof kasta oo Soomaaliyeed baa soo dooran karo one man one vote waxa laga yaabaa idinkii in aadan hadda ahdiid ay leedahay maadaama aad wadankii aadan joogin hadda aad u arki karin laakiin qofku markuu konton qof soo xulato iyo markii dad badan oo Soomaaliyeed isugu jiro ay soo xushaan waxaan malay quality-gooda waad kala garan kartiin marka meelahaas oo dhan waxa ka arkaysaa wadanka isbedelka ka socdo iyo horumarka ka socdo insha Allah taala waxaan rajaynaynaa dad badan oo idinkeedin ka mid ah inaan ku arki doono xagga iyo baarlamaanada soo socday ee Ilaahay ka raali noqdo saddexdii sano ee aniga aan ka tirsanaa dowladda wax badan oo lagu faali kara ay runtii dowladda gaartay dad badan waxay ka hadlaan khilaaf la'aanta Soomaaliya ka jirto dhinaca madaxda laba sano markay dowladda soo jirto khilaafka uu bilowday labadii sano iyo laba sano kale wixii la soo qabtaan baabi'i jiray marka hadda horumar aad u fiican ayaa jira dhinaca dhaqaalaha waa la socodsiin kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ka jira ismooyinka kaliya ka garan kartiin economiga magaalada marka dhaxmarta ayaa garan kartaa in wax badan isbedelay amniga sidoo kale qaybta aniga khusayso ogtiin airportka
movementiga keliya inta diyaarad imanayso iyo inta ka baxayso ayaad ka garan kartaa iyo rakaabka iyo ajnabiga iyo interestka Soomaaliya laga leeyahay oo dhan dadka Soomaaliya kusoo dhiiranaya intay yimaadaan ay wadanka wax badan ka furtaan dowladaha adduunka dariska ahayn oo intaba la weydiisanayna heshiisyo la saxiixano si ay diyaaradahooda Soomaaliya u yimaadaan wadamo badan oo Yurub ah oo aadan filaynin hataa inay Soomaaliya dan ka leeyihiin markaas waxay naga codsadaan inaan heshiis la saxiixano si diyaaradahooda u yimaadaan marka kobaca dhaqaale wuu socdaa amnigu wuu sii fiicnaanayaa dadka naftooda dowlad way sii aqbalayaan dowlad jacaylkii uu imaanaya marka rajo fiican ayaa jirto waxaan rajeynayaa insha Allah tacaala idinkana inaad kaasna kasoo qeyb gashiin halka aad joogtiin aad wax ku noqotiin qof kasta markuu wadanka uu joogo ayaa loo baahan yahay inuu wax ka noqdo wadankiisa oo ka waran mar labaad mar saddexaad waan idin mahad celinayaa kasoo qeyb gashay inta soo abaabushay intaba. Assalaamu calaykum waraxmatullahi